dhammaan umada youtuberka ama intii youtube-kayga aqoon u lahayd ee horaba ugu xidhnayd laba shay ama laba wado aynu ku rabno inaynu passwordkeena ku ogaano ama wifi-ga inoo xidhiidhsan iyo laba wado iyaguna IP address-ka aad isticmaalayso aad ku ogaanayno mid Windows-ka caadiga isticmaalayna sida Windows-ka loo ayaynu ku ogaanaynaa aniga Windows-ka igu duuban ama operation system-ka igu duuban waa Windows 10 professional way waliba PRO da haddaad aragto Windows home macni tanko PRO bur la socoto waxa way professional way Windows professional iyo Windows home bay kala yihiin marka waxaan doonayaa in qabla passwordkeena inaan ogaano sida easy-ga ama sida u badan dadka bini'aadamku badanka adeegsadaan waxa way wifi-ga dul tagaan dabadna right click bay raadaan open network internet bay raadaan kadib open network markay raadaan inaga waxay noo soo baxay imka Windows-ki setting-gi Windows 10 ku lahaa ama uu caanka ku ahaa bay noo soo baxaya marka waxaan sameynaynaa hoos ma dhaadhacaynaa hoos marka u dhaadhacno maxaan daba sidee inoo fududan ku ogaan karnaa wifi-ga tag okay kadib hoos u dhaadhac xaga waxay noo taala networking sharing center bay noo taala networking sharing center-ka markaan tagno kadib wifi waxa soo baxday khayr abrar baa xiriirsan wifi-ga isagaan click siinayna isaga markaan click siino kadib xorana wireless property kadib security-ga intagina kadib halka tigta taalo ayaan tigta saarayna marka imika haddaan tigta saaro waxa ka soo baxay wifi-gaygii waayahay dariiqii labaad ee rabno inaynu ku soo ogaano wifi-gan inoo anihi kulli waan bedeli doonaa laakiin waa inaan tusaa wifi-ga saxda ah ee uu inoo sheegi doono maxaan ku radaa Windows command promt-ku waa inaan tigta saaraa kan way waka degdeg baan uga qaadi doonaa 402 baa u horeeya lambarkaygii baa u horeeya okay kan ka bax waayahay halkan search intana waad ku dhufan kartaa waana intaad ka baxdaa oran kartaa calaamadda Windows-ki S waad ku dhufan kartaa halkiin baa ku soo baxaysa Windows searching waa ku soo baxaysa kadib waxaan oranaynaa cmd bi noo keenay maxaan leenahay run administration bay leenahay macni si maamul ku furo awood leh kadib marka saan inoogu soo baxo waxaan leenahay net shiu enter bay leenahay we know galaaday waalan bay leenahay enter bay leenahay waayay show profile enter bay leenahay maxay noo xiriirsan all user profile internet-ka imika Android operation system-ka ka bedelo Windows 8.1 bay ugu jiray Windows 10 baan ku shubay marka wifi fara badan ma isticmaalay waxaan ka guriga ahayn ka gurigan khayr abrar baa ku qoran marka kan khayr abrar dhowr system baa loo ogolaaday imika Windows 10 oo kale Windows 8.1 kaygii oo kale waxaad ayaan ku ogaan karaynay waxaan oran karaynay not see walan we not taagantay show bayroranay profile adwa Windows 8.1 kii saas markaan raanay iroranay magaca wifi-ga qoraynay khayr abrar oo kale kadib space bayroranay key baan qoraynay equal clear bayroranay waa Windows maxaan ku dhahay 8.1 kii kadib waxa soo baxay password-kii user-kan ama magacan internet-ka ee dooratay kan ma yeelay Windows 10 uu ka process duwan yahay kan laakiin export baan ku sameeyay waxaan leenahay export way profile hay folder equal z calaamadii la socotay okay waxaan leenahay space key equal clear enter baan ku dhufanaa waxa wuxuu nagu yiri successful yacni file-ka ay ku xariisan yihiin Windows-ka password-kiisu Windows 10-ka ayaa waxa la sameeyaa local disk-ga faylasha kamid ah file agtooda lagu save garanayaa waa laga export garanayaa waa laga soo saaraya way waxaan tagnaa Windows-keeni ma doonaa sida local disk-ga intageynaa way local disk-ga waan tageynaa okay way naga tagnay xaga uga soo maxay noo taala wifi khayr abrar bay noo soo baxay laba jeer click si kadib wax ku weydiinayaa
browserkeen ku furaa isagaaba Windows browserka Explorer ayuu noogu furay okay dande waxa ku weydiinaya security Windows ku lahaaba ku weydiinaya waxa leeyahay kan ma naga xiraamay marka la weydiiyay oranayna wakan passwordki 4027183 waa ka ugu hooseeya waa kalka yaala si degdeg ah insha Allah uga buuxsano inaan ka qaadaa way IP addresski ayaan doonaynaa hadaba laba meelood inaan IP addresskeena ku ogaano internetkan isticmaalayno wifi ga intageena wifi markuu soo noogu soo baxo property-gaas intageena property-gi markaan tagno hoos xagga hoose ayuu adiga kaaga soo baxay laakiin aan IP addresskiga waa muhiim inaan hide gareeyo ma doonayo inaad aragto laakiin halka markaad joogto hoos baad waxaysaa IP addresskaaga waad arkaysaa way hadana dariiqii labaad command programkan isticmaalna command bay ku qoraynaa isaga imka run administration modena caadi iskaga furaynaa kadib IP config bay leenahay kadib enter baan siinayna isagana halkaas uu kaaga soo baxay waa kaaga hooseysa waad salaamintiin dhammaan ummadda islaamka meel kasta joogtaan waxaan leeyahay walaalood mahadsantahay daawashada daawatay like subscribe kii commentiguna waa dhinacaaga wixii talaamo wixii aad uga baahato Windows server operation system ama troubleshooting ama software-ada maqan oo missing kama oo la computerkaaga ka sidii u xalin lahayd waxyaabaha soo dhan iyaga Soomaaliya insha Allah taladooda waan ku siin doonaa mid kale hadda tahay in operation system cusub ku shubtay waxaad u baahan tahay waayo waa qol maran operation system ku fayl fara badan ba ka maqan waxyaabo fara badan ba ka maqan iyagana talaan ka siin doonaa sida ugu fudud heli doonto wixii su'aalaad iga baahato walaal wax kulli waxaad igu dhaantaan waxbaan kugu dhaamo oo soo weydiin kartaa commentiga igu raabixi talaa waad mahadsantahay walaal qaali